tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola oo laga yaabo inuu waayo 6 ciyaariyaan kulanka Crystal Palace ee maanta haddaba yaa kamid ah xidigahaas muuqaalkan ayaa ku gula wadaagaya ay soo dhow daawade balse marka hore waxaan ka dalbanaynaa like saarto muuqaalkan sina share gareeso sidoo kale aad ku soo biirto bariga bulshada follow iyo subscribe aad dhahdo maasanid tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa laga yaabaa inuu waayo 6 ciyaariyaan kulanka Crystal Palace ee maanta kooxda Manchester City ayaa la soo warinayaa inuu soo gaaray dhaawac cusub oo soo daahay ka hor kulanka Crystal Palace ee maanta waxaana xidigaha laga yaabo in kulankan uu seego kamid ah laacibka lagu magacaabo Phil Foden kaasi oo shaki weyn laga gelinayo inuu ciyaari karo kulanka maanta 24 sano jirkan ayaa weerarka kala soo muuqday Omar Marmoush kulankii Manchester Derby ee barbaraha gool la'aanta ah ku soo dhamaaday isbuucii hore laakiin waxa ciyaarta ka saaray Pep Guardiola waxyar ka hor kulankaasi intuusan dhamaan waxaana bedelkaasi loo soo weeyay in dhaawac yar uu soo gaaray laacibka reer England balse falcelinta ciyaarta kadib waxaa la arkayay jamaahiirta kooxda kubadda cagta Manchester United qaar kamid ah oo fal afnagaata u keysanaya laacibka Phil Foden oo ay hooyadii afnagaadeeyeen si kastaba waxaa la soo warinayaa in laacibka reer England ee Phil Foden laga yaabo in uu seego kulanka maanta oo Manchester City la yeelan doonto kooxda kubadda cagta Crystal Palace kulan qaybka horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League wargeyska Manchester Evening News ayaa sheegaya in xidiga heerka caalamiga ee dalka England uu hoos ugu dhacay tuunalka arintii aan la sheegin awood la'aanta Phil Foden waxay ka dhigaysaa Pep Guardiola inuu sidoo kale u waayo ciyaartooy kale oo dhowr ah kulanka maanta Manchester la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Crystal Palace maadaama mid kamid ah dhibanayaashaasi muddada dheer uusan weli ku soo laaban garoomada kubadda cagta waana Rodri Manuel Akanji oo qalin lagu sameeyay bishii Febraayo ayaa ah kan ugu dhow ee soo laabashada kooxda Manchester City laakiin xidiga heerka caalamiga dalka Switzerland ayaa weli la filayaa inuu dhowr isbuuc oo kale uu ku maqnaado dhaawac soo gaaray dhinaca kale John Stones lama qorsheynin inuu ka soo laabto dhibaatadii boodada ilaa horaanta bisha May si lamid ah Erling Haaland waxaa isaguna kulankan uu yahay mid seegaya Nathan Ake oo cagta ka dhaawacan ayaa sidoo kale Manchester City ka maqnaanaya kulanka maanta ay la leedahay kooxda kubadda cagta Crystal Palace kooxda Manchester City ayaana doonaysa inay ku soo laabato wadada guulaha isla markaana booska afraad ay kala baxdo kooxda kubadda cagta Chelsea oo 53 dhibcood la fadhida halka Manchester City ay fadhiso booska lixaad iyadoo leh 52 dhibcood haddaba sidee u aragtaa dhaawacyada ku soo badanaya kooxda kubadda cagta Manchester City iyadoo kulanka maantana shaki weyn la gelinayo laacibka lagu magacaabo Phil Foden aragtidaadu waxay tahay qaybta hoose comment ku reeb